kulankan baroordiiqda ah ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta jeelida dowladeegaanka soomaalida ee Itoobiya ee wadanka Jarmalka odayaal haween aqoon-yahan ayaa ka dhacay magaalada Frankfurt ee wadanka Jarmalka waxaana taasi tiiraanyada u direen dadkii lagu laayay dalka Itoobiya ay sheegeen inay ka dambeysay dilkaasi Oromada waxaana cod dheer ku sheegay in loo baahan yahay in gacan bira lagu soo qabto dadkii ka dambeeyay dilkaasi gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee dowladeegaanka Itoobiya ee wadanka Jarmalka Abdullaahi Axmed Maxamuud ayaa ka hadlay goobtaasi waxaana uu tacsi u diray dadkii lagu laayay wadanka Itoobiya ee Soomaalida waxaanu yiri waan halkan ka cambaarayno dadka Oromo dhan ma cambaaraynayno dadka dambiilayaasha ee criminalka ee dad aan dambi lahayn oo walaaladoodu dhex degan boqolaal sano dhex degana intay ku soo noqdeen iyagu marka xasuuqay oo ma garanaysaa dhiigoodii daadiyay wax sababana iyagoo marka aan u cuskanaynin qof dambiile ah waaba laga yaabaa inaad la dhaho qofkaas isagaa dambigaa kale laakiin nin aan hubaysnayn oo walaalkaa ah oo kula degan oo marti ku ah inaad isagii ku soo noqoto iyadoo wax sabab ay jirno aad isagii xasuuqdo wax aadaminimada ka baxsan weeyaan waa wax waxshinimo ah taasaan cambaaraynaa kuwa ka dambeeyay iyo kuwii fuliyaan cambaaraynaa waxaa kaloo iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyada Soomaalida ee Itoobiya ay fadhigoodu yahay wadanka Jarmalka waxaana tacsi tiiraanya loo direen dadkii lagu laayay dalka Itoobiya ee Soomaalida waxaana ku baaqeen in gacan bira lagu soo qabto dadkii ka dambeeyay dilka Soomaalida tirada badan ee lagu laayay wadanka Itoobiya diraya qoysaskii iyo ehladii qaraabadooda lagu laayay gudaha Oromiya ee sida wuxuushnimada ah loogu laayay naftoodii iyo maalkoodiiba ku waayay calanka Itoobiya dul hoostiisa iyagoo calanka harsanaya oo meesha lagu xasuuqay ay tahay waliba saligii boolisku waa hay'adii ilaalin lahayd dadkan ilaalin lahayd waa hay'adii nabadgelyada gudaha inay iyagu qaabilaan looga baahnaa dastuur baa ka dhaxeeya dawladdu waa inay ilaalisaa xuquuqda dastuuriga ee dalka isku haysa abdi ያለቀሰ አያችሁ ቲቪ ላይ ግን ለኛ ማንም ሰው አላለቀሰም እስካሁን ድረስ እና በእናታችሁ ትንሽ ሀዘን ከኛ ጋር የሚሰማኝ ከልብ የሚሰማኝ ማንም ሰው ይሰማል። ይሄ በሙሉ ህዝብ የመጣ ተቆስሏል። ቁስል ያደረሱን ህግ ላይ ካልቀረቡ ብዙ ነገሮች ይፈጥራል እና ስለ ቁስላችን የሚድንበት ብቻ እነዛን ጉዳት ያደረሱ ይሄ ያደረጉትን እንዲቀርቡ ማንም ሰው ሊገል አይችልም እግዚአብሔር እንጂ ፈጣሪ እንጂ ማንም ሰው ለደረባት አባላ አባቴና waxaa jeclaan ku hadla af Oromada Oromo arawan sinja bika jirtani hunda biyalama bika jirtani hunda naf dhageysani ara wanjo sinja biya jirtani hunda naf dhageysani Abdirashiid Cayinte Home Cable TV magaalada Frankfurt ee wadanka Jarmalka